madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kulankan gaarka ah oo la yeeshay guddida qandaraasyada qaranka ee dhawaan uu magacaabay ayaa ahaa mid madaxweynuhu uu xubnahan ku dhiirigelinayay inay shaqada adag ee hortaalla ay ku gutaan si xilkasnimo ay ku jirto isla markaana ay dardargeliyaan shaqada adag ee ay qaranka mas'uulka uga yihiin isagoo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xubnahan ku tilmaamay in shaqada ay qaranka u hayaan tahay mid lafdhabar ah oo si habsami iyo daahfurnaana ay waajib ku tahay inay ku galaan si guul looga gaadho habsami u socodka iyo daahfurnaanka hanaanka waxiibsi ee hay'adaha kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa xubnaha guddida qandaraasyada qaranka ku adkeeyay inay si firfircooni iyo dardar cusub ay ku jirto ay u furaan hawlaha adag ee sugaya isla markaana ay baylaha tiraan dhammaan shaqooyinka hor yaala una dhabar adeegan caqabadaha ka hor iman kara inta ay waajibaadka qaran gudanayaan. waxaanu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ballan qaaday in madaxweyne ahaan uu diyaar u yahay taageero kasta oo la garab taagan yahay guddida qandaraasyada qaranka si ay shaqada qaranka u hayaan guulo horumar la ay ku talaabsato. dhankooda xubnaha cusub ee guddida qandaraasyada qaranka waxay madaxweynaha uga mahad celiyeen magacaabistii uu xilkan u igmaday waxaanay ballan qaadeen inay hanaan furan oo cadaalad iyo sinaan buddig u tahay ay u gudageli doonaan waajibaadka shaqo ee hor yaala iyagoo madaxweynaha hortooda ka ballan qaaday inay si hagar la'aan u oofin doonaan amuuraha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu igmaday ee ku saabsan hanaanka wax kala iibsi ee hay'adaha dawladda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland.